miyaanu gudbinaynaa cabashadaasoo ah dhul aanu lahayn oo la yidhaha halkan buurta kala jeexan oo malaha wax ku aasan yihiinoo dacwadaheedu muddooyinkan baa ay sugeen oo dad badan oo cid walba leh oo wada degan oo cid walba cabanayso ay jirto bariga dhulka waxa la siiyay annaga dawladii hore na siisay waxay ka soo calaamad mooyaane annagoo ka qabanin ayaa laga qaxay dhulka oo aanu qaxnay cagafyadii la mariyay ahayd oo ilaa imika calaamadihii muuqdaan ayaa la soo noqday wadanka aynu dib ku soo noqonay arrinta halkaa noo maraysay reerkaa la yidhaahdo reer biixi cabdi ilma biixi cabdi weligayo annagu meel ay wax ku sheeganayaan iyo meel ay wax ku leeyihiin midna maanaan maqal ilaahay baa saa naga sarreeya been ka sheegi maayo dadariyayna mayno waxa la wax naga dhexeeyay oo dacwada oo marra aanu wada gallay oo haddii bidayso dhul isku qabsi ah istaakulayn iyo wax isku tar mooyaane ma jirin bari dhaweyd unbay calaamad lana mariyey calaamad unba lana marsaday calaamaddaa lana mariyey waanu la yaabnay waa maxay baanu nidhi waxa la yidhi dhulkaa waxa la ree biixi cabdi laba balood baan meesha ka iibsanay dabeed labadii balood waanu seesanay haddii aanu seesanayna dee imika waxa laga dhigay halkaasoo kalaa laga dhigay dee in reer leeyahay inuu dad leeyahay anagu waxba ka garan mayno dad reer baadiye ah baanu hayn xoog kumaanaanu qaadin cid maanaanu weydiisan xoogina yar baan ku iibsanay dahabshiil waraaqihii ay kolba kunka nagaga goynaysay waanu haysanaa nootaayadiina loogu garaacay ay waraaqaha inoo kala garaacday kolba bil waxa bixinaysaan waanu haysanaa marka dee cadaalad darrada intaa leegay nagu dhacday ay islaam markaa kartaan anagu balda isku dhisataan laba balood baheeda isku dhisataan maanta midnaba ma hayno muddada la sheegay ee 6 iyo 40 sanadooda annaga mulkisanayn cidina naguma haysan nin sida kale noo riixriixo dee wax naga rita mooyaane cid kale cidina namay odhan malihidin maanta kolku muusan noqday madaxweyne intii hore wuu joogay nagumuu qabsan maalinta maanta kolku noqday madaxweyne ayuu muusanna qabsaday annagu niman sidaa ku hadhaya oo wax iyagii kaga hadhaya ma nihin in dadka la dulmo oo la baabi'iyo halkaa sidii qaxoontiga halkaasay wareeyeen dadka imika dhulkana 15 sanadood bay dadkan qaar haystaan faylashoodii xaggee ku maqlaayeen qolada sheeganaysa imika qolada lagu haystay madaxtooyadu soo diraysaa goormay dhulkan lahaayeen ayaa la iga xaqal qaaday kay soo fariismaado soo baroodada meeyaan dhicin musaacid dib u dhicin anna waan xanaaqa wuxuu ku dhuftaa maalin walba sad ku maalay qaaday 500 war muusow warniyo ilaahay ka baq erga dadkaaga baanu nahay ehelkaaga baanu nahay walaaladaa baanu nahay kuwii ku dhibanayaanu nahay ilaaha ku abuuray ka baq magac ka tag sharaftaa wanaagsan mudane madaxweyne muuse biixi cabdi adigoo madaxweynihii Soomaaliland taa lagama filay way sadacdo walaalkii wax la qari karaya ma kulkaas waliba maxaabisin ma loo qabsaday waxaan leeyahay taasi tii laga sugayay ma cadaaladda waa la ilaashadaa isma siiyo inha ka sugina nidaamna ka sugina cadaaladda idinka ay soo haya xishood baan nahaya burca waxa la galay bari bariga rag baa dulmi daraaji u galay ka soo socdo dooxo ka bilaabmay haddii cadaalad dhici weydo xoog la ka taagan oo leeyahay madaxweynaha ayaa nagu hayay qoysaskaasi leeyihiin annagu hadal kooban waxaan u leenahay madaxweyne maanta dhulna uma baahnid Soomaaliland oo dhan baad madax ka tahay bari ilaa galbeed dadka masaakiinta jilcida sana banaanka lagu daadiyay ciidankii ahayd inuu u adeego dadka aad ku soo faylisay waxa weeyaan ka qaado oo xaqooda si oo dhulkooda u daa ilaahay dhulkuma baahine waxaynu buuraa u galeen waxaynu darxumada u galeen waxaynu u galeynaa inaynu dadkeena dhaqanno inaynu xurriyad madax bannaani iyo cadaalad dalkan ku helo labadiiba imika waa la buhabuhaynaya xataa xurriyaddii waa taa loo diidayo xurriyaddii baa la buhabuhaynaya iska daa cadaalad inaad hesho cadaaladdu waa taa dulmigii laga qaylinayo ee dadka dulmigii ka qaylinayaan
cid kale oo aanu la hadlayna ma jirtee madaxweyne muuse biixi cabdi baanu leenahay madaxweyne dadkan masaakiinta ee weliba buurta kala jeexan dulmiga ha laga daayo